marka ugu horeysa waxaan rabaa halka inaan tacsi uga diro shuhadadii dhiigooda ku daahirisay dadkii iyo deegaanadii cadowga u haystay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannatul firdaws geeyo waxaan ilaahay uga baryayaa kuwa dhaawac inuu boogadhayo waxaan ilaahay uga rajaynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen inay samar iyo iimaan ay ka yeeshaan waxay ahaayeen shuhado dhiigooda u shubay inuu dalkoodu u noqdo iyo dadkoodu ay xorriyad yeeshaan waxaan runtii halka meelay joogaanba ciidamada Puntland ee geesiyaasha ah ku boorinayaa hawsha ay qabteen inay tahay hawl ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda caalamka iyo ummadda reer Puntland bay u ogtahay ay karaamada dadkooda ku sugeen ay muujiyeen geesinimo ay muujiyeen lahaanshaha dhulkooda in cid walba oo ku xadgudubta ay diyaar u yihiin in ay ka saaraan waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis hawshaas socota oo runtii hawl aad u baaxad weyn ah oo dadka reer Puntland oo dhan ay u midaysan yihiin inay noqoto hawl sidii loogu talagalay u fusha waxaan rajaynayaa dhalinyarada iyo dadka magaalooyinka jooga ee gurmadka iyo dhiigga iyo garab istaagooda inay hawsha inta ka sii wadaan